بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. runtii labadii sheekho naga horeysay ayaa si wanaagsan oo aad bayaansan u dhigtay fidnada iyo sida looga bixi karo. waxa kaliya oo aan ku daraayana waxa waaye inta uun hadiga salafka markii la akhriyo la fiirfiiriyo ka soo dhaxbaxaysa waa saddex qodob oo iyaguna aad muhiim ah oo wax lagu cilaaji jiray ama lagu daaweey jiray ilaa waqtigan la jooga ilaa yawm al-qiyaamana daawo uun u taagan ummadda muslimiinta noqonaysa. midda koobaad waxa waaye waxaa laga maarmaana fitan iyo dagaallo ahliya ama kuwa daakhiliya hadday dhacaan magacay rabaan ha wataano magac diineed ha wataano sida inta badan fidnooyinka salaf saalix xilligiisa saxaabada iyo taabiciinta dhacay inta badan waxay wateen magac diineed laakiin saddex arrimood asaas u ahay markii siirada la akhriyo iyo taariikhda. midda koobaad waxay ahaaday mu'aamaraad dibadda laga soo dhisaayay oo inta badan qabaa'il iyo qowmiyaad iyo dowlado jabay oo islaamku uu dardaray oo liqay oo uu zuuliyey mulkigoodii ayaa waxay mar kasta diyaarinayeen ummaddan islaamka oo carabtu ay hogaaminayso xisaab adag inay la galaan oo ay isku dayaan inay ka aargoostaan oo ay fidno daakhiliya iyo dagaallo daakhiliya ay ka sameeyaan. waxa ugu horreeyo sida hadda sheekh maxamed uu sheegayay albaabkii fidnada lagu jebiyey ama albaabkii fidnadu ka soo gashay oo la jebiyey laga bilaabana wuxuu ahay dilkii sayd cumar radi allahu canhu wa ardaah. waxaana la ogyahay sayd cumar nin majuusiya inuu dilay oo xadaad ahay ninkaasna inuusan iska ahayn arrin iska timid si dabiiciyahe mu'aamaro muddo laga shaqaynayay oo nimankii ahaa farisiyiinta oo majuusta ahaa oo ciil badan u qabeen sayd cumar burburintii islaamka uu burburiyey yacni mamlakadoodii iyo carshigoodii kisra ciil u qabeen ayaa soo abaabulay barnaamijkaas. arrintaasna waxay ka qaadanayeen culammada islaamku mar kastaba fidnooyinka qayb ka mida ama qaybaha ugu khatarsan inay ka mid tahay faragelin cadowga dibadda ah oo uu ku soo sameeyo dowladda islaamka iyo mujtamacaadka muslimka si uu zaczaco iyo maaragtay dhibaato uu gudaha uga sameeyo. waana midda hadda annagana haysata qaybtaas waa midda soomaaliya maanta haysata oo aad looga shaqaynaayo iyagoo magaco kala duwan loo bixinayo in awoodda soomaaliyeed dad isku wada diina oo isku wada deegaana oo isku wada madab ah oo isku wada jinsi ah oo isku wada luqad ah oo dhinac diinti ka midaysan in aan loo ogolayn inay oo dhul barwaaqaad degan oo meel istaraatiijiya ku yaalla oo aad u dagaal badan oo geesiyaal ah inaan marna loo ogolayn in kayaan awood leh oo xoog leh u taagnaado u dhisnaado. dowladdii soomaaliyeed oo dhexe ee 90kii baxdayna iyadoo gacmihii soomaaliyeed lagu dumiyey waxaa lagu dumiyey mu'aamaradaas khaarijiga oo dibadda laga soo diyaariyey. waad ogtihiinoo makay madiine lagama soo abaabulin wixii lagu dumiyey roma iyo london iyo washington iyo addis ababa laga soo diyaarinayo. arrin macruufa waaye arrin qarsoon ma aha. waana fahmi karnaa meelahaas waxaa ka imaanaya inta ay la eg yihiin iyo wax isay u yaaliin iyo waxay xambaarsan yihiin. marka barnaamijka ugu weyn fitanta albaabada ay ka soo gasho fidnadii ugu horeysana islaamka laga soo geliyey nin la yidhaahdo maarata cabdullahi ibnu sabana iyo majuusigaas iyo qaabab kala duwan loo adeegsaday xilligii sayd cumar iyo xilligii sayd cusmaan labadaba wuxuu ahaa tadakhul khaariji ah iyo tarabus xaaqid ah iyo maaragtay cadownimo loo diyaarinayo ummaddaas islaamka in gudaha laga dumiyo. laakiin waxaa la adeegsanayaa caadifo kastoo la adeegsan karo. tii ikhtiyaalkii sayd cumar lagu sameeyey wuxuu ahay cudwaan iska xaaqid oo waadixa isagoo aan shaati diineed loo gelin. laakiin sayd cusmaan waxaa lagu dilay mid nasiixa iyo diin iyo islaax hugsan laakiin isaguna ah mu'aamaro khaarijiya oo loogu talagalay in dowladda islaamka lagu dumiyo. taa marka waxay ka mid tahay iyaduna asbaabaha iyo albaabada fidnadu ay ka soo gasho. annagana maanta waan haysataa soomaali haddaan nahay. albaabada waxaa ka mid ahoo kaleeto albaabkaas ta'wiilka diiniga ah oo si khaldan diin loo fahmo iyo islaax in la sameeyo iyo in macruuf la faro iyo munkar in la reebo iyo dowlad islaamiya aan dhisaynaa in albaabka laga soo galayo laga dhigto sida hadda qisada oo doctorku sheekh alfaadil oo hadda sheegay abulcaynayn doctor sheekh cabdiraxiim oo ibnulcash xalna anagu aan faahfaahayn ood ogeedeen muxaadarada xala ku jirtay oo ah ibnulashcath qadiyadiisii
الدولة الإسلامية أقل شيء أو دبات لبس سنة وحرير دجال وكسعده ضد انتاسو بقولوا كنا إدوات كوجارتي علماء بدنا اللي يقول لي أو في النادي دينا كستبا أي ساميسي ضد كاسو ضد وحي هاين قرادة من العشرة ثلاثتيس أو سوق في النادي هو جامنا هاي ضد أهل الدين أهل الإيمان قرآن كحفاتكو أهل العبادة استا كتيبة القراء اللي بحيي ابن حجر مركو قال الله يحول له في الفتح يحول له يسموا قراء لأنهم لكثرة قراءتهم في صلاة الليل قرآن كاسبين كرة من صلاة الليل أسود جيدين ونمنعوا عبادة بدن بي هاين لكن تأويلك دينك هيا وحول لقى باب الفتنة لقى مركز يقول خير دونا أي فسهادين ومد دقال أدحون بعد عي إما بدنا الحسن البصري وكميديا واتي الله صدري ولا مفاوضات واديدين دقال كي دورتين إلى آخره قصة الرياضة هذا الشيخ أو ظرف كميديا الشيخي قيب تاسنا قيب شات الدين إصلاح إيه وحاجين دك سواي ولي هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وحول لي هاي هذه الثورات الإسلامية كعضو نظام إسلامي أو فرها بدن أو ولي جود عالم إسلامي كدع جري ولي جود خير مكينو له كتاب كيس وينو كله فتاوى وح خير ولي جود مكينو له إلا وحي كين جرين منك ظالم كان إنه وحسيد ظلمي وزيادة جرين كان لظلمنا إنه وح زيادة جرين إلا سيد ظلميه خير كإل هاي وخيرا كين أنا إن خير كلا قصيد تجو الشرط اللي سيكون رصدهم يكين جرتا حبل لكم فايدة ولي جود وحول مثال السوق هذانا حتى ضد الصالحين هديه قامنا يقول له في دنيا سيدي في النادي على عبد الله بن الزبير يوالك اسمه مسعود بن الزبير رضي الله عنه عن عبد الله ورحمة الله على مصعب يعني دقالك هو قامنا هيين علماء ويكله لحظان فدنا إني كنت المامان قارنا مؤرخين فدنا يراهن وسيدي من الأشعث إيو مختار إيو غير كودي فدنا اسكي يراهن قارنا ما دام السحابي جليل أو أي وحي يراهن يعني قتال عبد الله بن الزبير قال سقع عبر دقالك عبد الله بن الزبير لكن فعلا فدنا أيوة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لي هاي حتى هذه الصالحين هو كان كيهن ضد صالحين ابن الزبير عبد الله وأكتين وحواي أبيه سجنادي كل لقوا بشاري وكجرا طبعا كيو كميديا الزبير بن العوام هو يدي سوكتين وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ودكتين هجرين الدور كإقاطة خير كذا وحتى آل أبو بكر ولا يرادا يغلط جنادا لقوا بشاري ما دام النبي قصاد وقال يقول صفتين صلى الله وسلامه عليه قف خير بدن بقى هيد السجل لفتي سوى حاله إلى بشارة ضمني أيو قباء إن جنادا لقوا بشاريه ديق النبي صلى الله عليه وسلم مركو عبي أيا رواية وحاجة النبي يقول الله صلى الله عليه وسلم مركو ديق مال اللوجد كقري وقبس وسيو ساعبي تدير بقى سكول عبي حقيت قيس ديق مال اللوجد لان كقري ويري واقص النبي صلى الله عليه وسلم مركو سوي رواد عبد الصومال سوي رها إذا لن تمسك النار لكن ويل لك من الناس ويل للناس منك وكما قال صلى الله عليه وسلم مركا نار كتاو ميس أدب ديق عبتي أيو يري مركا وحواي أسجل لفتي السداسة وحلا لو قلت لي إنه هذا خير بدنا طبعا لكن صحابي الجليل ولن يراه هذا خير بدنا عبادة بدن لكن دقالك هو قامي سقوا خير دونا وهكذا شيء إن لو بابو عبد الله بن عمر أوجا نصيحة صحابة بدنا أوجا نصيحة سواد دي أسجنا ولا لو قد لي ولا الكيس ولا لو قد لي عيد الكيس ولا لا دبات بدنا دعضي إلى آخره ابن الأشعث نواتي حل لقى شيكينا يهدنا الشيخ أو شاقي مركز دقال هذا صور دن قلك له على علي ليرادو أو صالحين هايو علي بن مدلو الميس هاي يقول نساسو كلي تدال وقالين مدينة مرقب صدين وحبيس سمايين وحلق فايدون إلا الله أهين مجرت ما قحوا أنت اللي قاضي له جيجري قال جيجري ماس له جيجري وحل قدم الدولة العباسية ويا وجعفر المنصور حل قيس إيجانا لو تبضنا كل عضي لو تبضنا ومدة وصابين إذن خوارجتي أيضا كفايستو أول فتنة بقى يقعد أجهري وسيد علي نجد لين رضي الله عنه والصحابة بدن لاين ولبات بدن سمايين ده العبادة بدن يقولون أو أذق أو جيسيال ودقال بدن هايين الدولة الإسلامية رمناله والصحابة قال يسينيا وتابعين قال يسينيا ولبات بدن سمايين هذا أنا وح خير لقى ما قارن مركب وحنا كسر قبل غضب كان إن دينته وحكت سنين هنا يرادو دتك اللي قال يسيو سيد خوارجته أما أن اللي قال يسينا اللي ممكن نزولنا سيدي مارت ابن الأشعث إيو آل الزبير إيو أيوة دتك ما قال يسينين ما هين تكفير ما هين أهل السنة والجماعة خالص هاين لكن عاطفة يدين جعيلة قارسيسة إني دولة الأموية لا درينا أنت يراهين يجنا الله يجنا وحلايان وحنا لقى من فايدين الباب كان مقع الدين يدو دقال هذا اللي قصة ما ينا أسجنا ولا حن في ذنائين يدباتين بربرين ولقيس مكينين ولقيس لقى ما دحلين حتى هذه صالحين الصحابة تابعين وقامنا يعني قيبت السدحادنا وحواي ضد حكندونا أو صراع سياسي هي منصب كده قالما أو في دنيا كمل هاجر سيد هذا الشيخ ففاهناي أو كح وكلا بحا أما قبيل شات قبيل هاللوجلي سيد الصومالي كله على كويس سجاشنكي فتنة هذا قال قبائلك ضد بدن بقى بركعي قرية إسلامي هذا حاران لقد جاي ضد حتى عرضي وحلا قارسي وحصل واحد هذا صراع قبلي وفتن واي سيد هذا عالم إسلامي بدن كجرت ولي قدنا كجرتي مركز سد حداث قيبات أو قيبة أي تابع الدينات
oo dhibaato badan u horseeda ummadda in laisku laayo oo mid ay tahay khaarijka in laga soo farageliyo oo magaco kale inta loo bixiyo ummadda laisku halakeeyo oo qayb ay tahay in siraac kursiga lagu dagaalamo oo kooxba koox iyo istiraado meesha ka dhaxlo ka qaata shalay sheekh maxamed xalawatu sheekh maxamed aad u faahfaahinayay dhibaatada ay keeni karto haddana asbaabaha fidnada ugu waaweyn ka mid ah waa maqlayseen waydiiqa bacdakum shay'an yani ba'sa waydiiqa bacdakum ba'sa ba'd yani qaar kale linsiye maartay loo kala qaybiyo koox ummadii oo hadee ummadan lagu imtixaano marka saddexdaas qaybood sidee looga bixi karaa saddex qodob oo kale aan ku soo aruurinaya iyadana markii la akhriyo hadiga siirada saxaabada iyo taabiciinta iyo la akhriyo waxay xoogga saari jireen sheekh maxamed aad u faahfaahiyey saddex qodob oo waaweyn qodobka koowaad wuxuu ahaa dawladda dhexe oo ummadda ka dhaxaysa in la xoojiyo oo la adkeeyo haddaysan jirin dawlad dhexena dawladda dhexe la keeno oo ay daruuri tahay oo aan ummadda marna lagu dayn karin bayla inay ahaato oo dawladaan ay ahaato arrintaas arrin khatara waayo liannahu mujtamac aan meel dhexe xukun dhexe oo dawladda aan lahayn waa dhumaya mujtamacaasu maba jiraya waa burburaya waana midda keentay in nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo khayru khalqi illahi oad ogtihiin ilaahay markii uu oofsaday in dawladda islaamka khaliifatu lmuslimiin oo khaliifatu rasuulillahi ah sida abubakr radi allahu canhu in lala baayaco iyadoo weli nabiga aan la aasino uu bannaanka yaallo weli yani jismaankiisa shariifka bannaanka yaallo waxaan loo aasin nabiga ahamiyadda ay leedahay in ummadda la mideeyo kelimadeeda qaarna waxay leeyihiin xigmaddaa ku jirtayoo nabiga sala allahu calayhi wasalam maadaama yani xanuunkii geeridiisa saxaabada uu ku wada jiray intuu weli bannaanka yaallo yani dad badanoo laga baqaayo xataa inay si uun u fikiraan ayaa xishoonayo baqaayo haddii xanuunkaasaaba la wada xanuunsanaya marka sidaas daraaddeeda malafka loo gebagabeeyey siyaasiga ahay ilaa hayri dalika aqwaal badan ay culamadu leedahay lakin waxaa maxalu shaahidku waxa waaye ama maqsuudku in dawladda la dedejiyo dawlad la helo hadday jirtana in iyada la xoojiyo laisugu wada tago qodobka koobaad oo fidnooyinka albaabkooda lagu xiri jiray waayo xataa haddii dawladdaas dawlad qaldan ay tahay oo dawlad yani tii la raba aysan ahayn oo khaladaad badan ay leedahay culammada islaamku weligood waxay dhihi jireen fidna kacararidu waa in la xoojiyaa oo aan lagu kixin oo aan lala dagaalamin oo iyada la tootoosiyaa waxaan miihaal usoo qaadan karnaa cabdilmalik iyo xajaaj iyo waaba iska cad yihiinba laakiin gadaal haddana soo aad ninka la yidhaahdo ma'muun iyo kuwa walaalihiis oo qaarna fiicnay qaarna xumaay oo asagoo ku fikir ahay waxay keeneen nimanka waa dawla cabaasiya waxay keeneen bidco khatar ah oo gaalnimo ah oo la yidhaha khalqu lqur'aan oo niman mutakalimiina oo falaasifo oo mujrimiin oo muctasile ah ay u dhiibeen ay yidhaheen caqiidada muslimiintu waa qur-aanka ilahi inuu makhluuq yahay iyo kuwo kale afkaar fara badan iyo sifaatka ilahi la inkiraayo iyo wax badan oo cadam laga wada dhigaayo diinta ilahi kamid a caqiidada ah ay yidhaheen dadka ha lagu fardiyo ha lagu khasbo culamada islaamka a'immadii amsaal islaamiya joogto dhammaa inta la soo aruursha caamul imtixaan sanado la yidhaahdo acwaam imtixaan oo imtixaan aheed fitan aheed oo fitan kuwa ugu daran kamid aheed a'immadii waxaa leeyahay qur-aanka ilahay maxaad ka aaminsantaha waa makhluuq kii yidhahdo xarigaa laga sii daynaya qur-aanka waa makhluuqna la yidhahdana waa gaalnimo waaye kufri sariixa waaye culamada salafku waxay isku raacsan yihiin qofka caqiideeye kalaamka ilaahay oo sifa min sifaat illahi inuu makhluuq yahay waa diinta waa ka baxay waa gaaloobaya masalatu mutaawil miyaa iyo xujada ma ku ogantay iyo ma la waxaynaya iyo masale kale waaye laakiin asal ahaan waa kufri kutubta caqiidadii ku cadda marka kufrigaas cad ayay dadkii ku khasbaayeen culamada qaar waa loo laayay qaar waa ta'wiilsadeenoo tawriya ta'wiil maa waa tawriyaysteen nin ka mid ahay culamada inta lasoo qabtaa la yidhi qur-aanka ilaahay makhluuq miya markaasuu yidhi altawraat waalinjiil والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة هذه الأربعة مخلوقة أفرت كتاب إنه يريا لقاتي أسوون أفرت إذا فرضان ولا جدوا يرمقله ويدي حتى الشيخ هذا تاي حدوت ريال أفرت كتاب مخلوق سوور هذه الأربعة يريور مركا اسمه إشارة فريق وكل عيور كتبته كل مين وحم موضة كتب فريق هذول مركا إشارة هالكاسان ولا جدوا راسه سكوح حيل ذي وكفك هذا لكن إمام كوينا جبل كآي أحمد بن حنبل رضي الله رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة اللي يرمق حتى كوقعة لقب كاس من كبار أئمة الحديث كمذا الشيخ البخاري ومسلم وذو التقانين أيا وحو يري wax tawriyaiya wax magaciisiya xeeladaysi ma gelina kitaabka ilaahay kalaam allahi uu yiri makhluuqna ma aha waa la xiray waa la garaacay waa la dhibay ilaa meerku ka tago ilaa la dhaxeeyo la garaaco meel la isaga xiro la laadlaadiyo wax kasta lagu sameeyay waa la nuuxi waayo imaamkaas farta kaliya dow taago waxa waa sheekh umalkeenoo kale ato xilligan joogo ah allah barakeeyo
مع فرق وين أي طبعا أوجره وهذا إمام كاسد فكتي لكن زمن كسبه وحيل أحمد بن حنبل كذا لا هذا اسكجر مركا ما أنت هذا الشيخ عمر الشيخ محمد أبو فرت تاجو شنت قارض الدنك واحد جوجو الصحوة الإسلامية علماء طلاب العلم أخيار بدن فرتي ولا تاجين فرتي ولا تاجين يقولون مركا سيدا سوء هاي إمام أحمد بن حنبل هدويرا كليا هذا مبتدع ضال هلا تورو حتى شمس عبد الجوجما واقاس علماء لا قدم به أئمة لا قدم به مركز انت لو تقال يري مسك تورنا هلا يري اخشى الفتنه او يري ومغلي يا شيخ اخشى الفتنه فتنه كبقى هنا دعدو يري والله سلينا يا nin kaanu hubo haystaa ciidan oo haystaa iska tag ma inta leeyo iska taga tagi ma soo jeesaa wuxuu garaaci karo garaaca asaguna hay dulaabtina Allahu akbar ilaa iyaguna imaamka ardadiisa iyaguna waa garaacaya umadiya raq iyo had iska dhigayso waa la isku laanaya waa mid maanta haystaa anaga marka fidnanka baqahu yiriyaan la taabanin quraanka ilaahay waa makhluuq dawladdu hogaamiyo waa wixiisa iska daldalo munkarkiisa wato asaguna xaq waa ku adkaystay waa diidan oo tanaazulo in la xunka laga toorana waa diiday limaada laana dawladnimada la ilaalinaya قصوين بدن أو كلنا واجرين اللي وليد إن عبد الملك وحو سمي جرى هدي لقى شيء عاول دم ماي مرة وقت أنا كقاضي إلى أنتوا خمرة كده رجعوا صلاة إمام تسكدوا أو صلاة الصبح أفرق عيس كده شجرة دورة بي اللي حرق عيه وما دنا كده بدو كي قفت كبعد هذا ودي لك لقى محكر ولا جيس ولا دبتها جاية ولحم فساد يا منكرات يا ولح بدن وليد بن عقبة وليد بن عقبة خير الله كثير وليد بن عقبة مركا منكر فربضان نوع عساجر مع ذلك وحي إلى لجرا علماء إن سفكاس يدولة النملاس يوحاس جودو سكيرن إلا داوعه أو فينا الدحقلية لأنه حرق جوسنا يستوي لنا نسوي نغميسو مركا حلقة كوباد وحواي إن دولة النملا لا إلاليو أو إذا كيان كاس أو النقضة وحلا ما تابتانا معاي الحرق أسجاس كحراي ومدة لبو دولة داس إن هات الدولة إلهي كبقي سو دينت إلهي كحكم يصدقك دولة هديسن دينت إلهي كرقمين خير ملأ إلهي نواف الجماية من كالمينايو فتنة كبيح ميسو ومد إني فتنة كسر تأس كلافة فتنة عصب إيديكو باللابنا يسابا هرمرنا ومد مقارسي كرتو وحيابها أنك الصومالي هدانا إلى هذا حل أن الله هنا لباتنا سدها سنوات أن جوجناي سدها هي طبعا كمية الدولة ذا لسودي ساي تنو هذا وحنا ولينا ومدحوينا أفراد مية هذا الجوجا مروا البد ومد سكرينا دبه شيسينا سمينا لكن ما شيء أرنتو أي كهلاقي لهذا أو كاسم لهذا هل تر حق الله في رمايو وعجيب طاق حتى ملع سمايو ورقدا wax lagu qorana kaliya waxa kitaabka Ilaahay ku dhaqmayna umadu waa islaam diinta islaamka lagu dhaqma laakiin in baraatika inta loogu dhaqmo oo culimadii loo yeero diinta islaamka waxa waaye waxa lagu dhaqmaa waa manhaj qoran waaye diintu xalna sheekh muxadiriis waa qiimo badan leh waa in lagu dhaqmo kitaabka Ilaahay markaad ku dhaqanto Ilaahay nasri soo dejinayo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadiisa taabiciinta annagu waxaan ka dhaxalnaa miiraadkeen waa quraanka iyo sunnada waaye dastuurka asoo ku dhex jira marka in inta culimada loo yeero ragga culaamo caalimiinta loo yeero la yiraahdo dastuurkan horta mid ka qoran oo nidaamkan ijraa'aatiga ah qaabka dawladda loo dhisaayo iyo sida wax loo dooranayo shuruud loo sameeyo ciidanka iyo waxaas waa wax ijraa'ada arrimahaas daariga laakiin mabaadiida lagu dhaqmaayo iyo qawaacida tashriica iyo arrimaha aasaaska islaamka ah in ay culimada calaamiinta loo yeero yaqaano oo dastuurka la soo qaato oo lagu sameeyo i'aadatu nadar ama dib loo fiiriyo قضاء إسلامية هي دعوة إسلامية هي جيش كقابك لو لسه عيدا مدة إسلامية أو عسكري دراجة أن لا أقولين أو أن خمر لا أقولين أو أن سيجار لا أقولين أو إنجاد لا أقولين أو إسبار لا أقولين أو تارك سلام أن لا أقولين أو عسكر صالحين أو واحد لسه دولة وحواجب كوا مدحونا أنت ليش غيسة إن الجيش كشرطة أي كده عن صالحين علماء هو واحد هجرين عسكري عن صالح هاي المركي أمن الله درو مثل كسمين اللي يرادو حاميها حراميها مثل كاس قديم واي حاميها كان إلالنا يا حراميها كي لقى إلالنا يا أسوق حرامي بقى مركز دوسن أسكروا حامي أهين أو سن صالح أهين حول عليك الهرتو أسوق بقى إلالنا أسوق الله نقبحيه الله نقى إلالي واي أسوق هذا جدد كنا عايز مقال كيس مركز حقوقه الرئيس هرتو لقى الدوف سيء الدين تلا إنه قد رقم بقى أساسه عسكري الله درا يهوش إنه صالح يا واي كو قرصار إنه يه إسلامي أو إنك أقصر يا محكمة دستر أو يهنين صالحة أو أمضي مالك سيد يوقتها إن فلان عنده الله يظلم إن اللي قدر من أكتيسة أو عدالة قاضايو لكن هذا هو مدق يبلع فيها يوم مدح حقاها يدي الله سوق قلبه ما لقبت بهذا لقبت بهذه ماي أنا هذا ضد جوجا هذا متوما يكوهر لكن قواعد الإسلام كان شيء غير واي وقت غير وسوق بقبينا وركن واعي علسي حقه وقت ونوايريه شربنا ما عوض شرب مجرى عوض ولا وين وكاله قال وحواي مركا قضبك مهم كا مركا وحوي هاي إن دولده أي سريحة أي دينة إسلام كإنه يقول دقنت أي قانصة واي
oo dadku iyo meel u wada jeestaan xarga ilaahay ku xirmaan qodobka saddexaad uga baxay waxa waaye oo ilaali jireen haddana sheekh doctor cabdiraxiim oo staabtay sheekh maxamed uga horeeyay xalay oo aayad quraanka suuratul anfaal oo maqlaysan waa alaf bayna quluubihim soo xal u sharxay waxa waaye in ummadda quluubteeda meel loo wada jeediyo oo laga shaqeeyo dib u heshiisiinta oo dadka kalsooni la dhex geliyo oo inta la istaago dadka shala quluubtooda waa kala jeesato waa isdileeno waa isnaceene in la beero zarcu wa khalq ajwaa yani ajwaa thiqa bayna الشعب الصومالي in la ilaaliyo way oo dadka la isku xiro oo meel walba la tago oo gabdho la sii gabdho la sii jira waagi hore jaahiliga la joogi jiray xataa laba qabiil hadii diraan 100 gabdhood oo gudgudan inta la soo aruurshaa odayaasha iyo ugaasida laga bilaabo jiray asal la afsan jira hadda toog la fiirima mawduucaas la fiirima waana la islaayay deegaan walba qoladii joogta waagi uu ku qaxday ama in laga qaxay iska joogta waagi soo mudmad waa safa fadhida qofta kale u gudbaysa ma jirto dawlad dhaxaa naga dhaxaysa ilaa inta timaaday ayaan iyo joogto meelaha ordaan iska tagaya kuwa asal ku cusbadan la jira banaanka laga jira waxaas wax tirimaaya waxa la rabaa dadka Soomaaliyeed iyagu inay dhaxdooda ka heshiiyaan oo isdhex socdaan oo dawladdu ay marxaladda hore oo dhan ay ka shaqeyso dadka inay isdhex mariso inay wada hadal siiso inay isticlaadaan in qolo walba inta la soo qaado intaasoo 100 ama 1000 oo qoys maahan guryaha in loo baneeyo la dejiyo kuwan kale la qaado gobol kale la geeyo la isdhex maro wax la isdhaafsado markaas waxa iimaanaysa walaaltinimadii isjaceelki ay iimaanayaan ugu dambeyn waxa la iska ilaali jiray waxyaabaha dadka dila waxa kamid ah qulubta kala dila dadku inay siyaasaan inay isquursadaan inay nasabkooda wax ka sheegaan ilaa hadda dadada nool jaahiligi al-arab qabla al-islam oo ay qabiil hebel reer hebel ma geeyaan iyo reer hebel nasab ma ahan iyo reer hebel waa nasab dhimani waxyaabo jaahili ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wajigiisa waxa mugo ugu carab badan waxay mugo ansaarta dadku ay maartay iyo mugo jaahiliyadka la isku habar wacdo waa labada maanta aan la noonahay waa ya reer hebel iyo anagu isma geeyno waa labadu nabigu u nacbay waa inuu maqlo sallallahu alayhi wasallam hatta marka qaarkood shirkiga markuu maqlaa la yiri labadaan uu ka carab badnaay marka waxa waaye shirkiga la meel joogaan waxaasan wali la nool hadada la nool waa maqasheen ninka yiri masaajidka ciyaarta ka dhaafa masaajidka ciyaarta ka dhaafa misalka la yiraahdo mar raba inaan faahfaahiyo marka waxa waaye waxaan idin ka rabaa inaan ilaahay ka baqno khuraafaadkana laga dhaxbaxo intan tawxiidka iyo arimahaas iyo salaaxa aan ka hadlayno oo dhinaca tawxiidka waxa barbar socda akhlaaq ijtimaaciya oo faasid ah oo aad u liidata oo mujtamaciin wali leeyahay islaamkana uu ku sheeganayo raal aad wada ku dheereeyay wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi